بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مراد الرقن يرقي قرآن كقيبي، waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo. waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeyey qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin. yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa. ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon, wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin. noloshii ku soo koray saas bay ahayd. carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin. dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen. carabtuna may lahaynba thaqaafada wax qoritaanka. waxay ahaayeen oral society, thaqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo waxa la jeediye ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn. waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halkay ilaahay ka caabudi lahaayeen. waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo. qur-aankii koowaad ee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay wuxuu ka warramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim. iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daayo, wanaagga ha la sameeyo, ilaahay laga cabso, meelaha in laga bilaabi lahaa. laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq. wax akhri. idan ayuha alikhwa, wax akhrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi, qur-aan min qara'a bay ka timi. cinwaan waa diinta islaamiga ah. waxay ku salaysan tahay waxbarasho, aqoon barasho. aqoon la bartana waxaa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto. ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ka ogaadaa buu is ammaanaa. la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer, kani waa khabiir, kani waa caynkan. waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah. makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi almanduur. culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira, mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey, iyo mid camal oo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya. ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno oo dhami. waxaad qaanuun lagu dhigo dhan, qaanuun baa physics iyo mid baa chemistry iyo mid baa biology iyo mid baa kana. qaanuunka la sheegaya waxa weeyaan sidii alla wax u abuurin baynu isku dayaynaa inaynu wax ka baranno. sidii wax alla u abuuray qofkan bini aadamka sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku dayaynaa inaynu wax ka ogaano. idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu kownkan ku dhigaya. qofkii intaa yar ka ogaadaa la odhanaya waa tabiib ama waa injineer, waa muhandis, waa khabiir, waa caalim, waa kan. kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigiisiiya oo ugu talagalay inaynu baranno
أنزله بعلمه. ولذلك أيها الأحبة وحتى إندتها يا إلهي كتاب كيسي كتاب كاسي صدح وحبا وينوغا باهيين نقول نقنو وحينوغا باهيين نقول نقنو تلاوة قراءة أخر وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كله أتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأنا أتلو القرآن. نبي عليه الصلاة والسلام حيل فري وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن. أخريا لي القرآن كان إنه أخرنا ولا ينفري كو إلهي أمانين وحقت الماما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة كأنه كتاب كسين تلا لما معناه في عربي كل هذا من ديوان تلا يتلو أخري من التلا يتبع والرعويا والقمر إذا تلاها وإذا غنرانا. إلهي سبحانه وتعالى وحو أمانة يكوي كتاب كأخريي الراعي لبدا معنى باللفظ يروي كوب سنية ورتل القرآن ترتيلا سادر هدي وحنا ركنا أيها الحبة قرآن كعبادة الله أخرية الله برتاه ونقص فقصا قفكي حرف أخرية محولي هي طبعا حسنه إنا أعطينا ضاد أخرى وحي علماء كشيء قال لبي أفرتن حرف مالها إنتي أفر يلا باطن أفر بقول يلا باطن أشربات لاد علماء حروف القرآن كتيرية قاركود وحي كتل المامان سدح بقول وكون كبدني سدح بقول وكون هذا أخرى دوامسه مركز مرة ما يسوى 6 مليون أشرة طبعا مركز لو قلفته. إذن قرآن كوا أخرس كيس ووحلو عباديسته ووينوغا باهي وأنا حفظدين وأنا إلالين إنسان وأنا أخريسان وأنا كوردين إنسان لبا الشيء وكلو مهمة أيام مركزية نشرة كو قرآنكو والرسالة نبي محمد لو سوديبي وأنا معجزة نبي محمد ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaar ah bay ahaan jirtay risaaladuna shay gaar ah bay ahayd مثلا nabi muuse maxaa la soo siiyey muxuu watay kitaabkii tawraad buu watay mucjisadiisuna maxay ahayd ushii gacantii ضفادعدي قملكي وآياتك 9 هاي قرآن كقرة أيه إذا معجزتنا قاربة هيد كتابنا قاربوها أنبياء دي قرآن كشيكين يا مكور رمي يود مساسي هاي. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزتي سير رسالة دي سوا متقولها كتاب كان قرآن كابا معجزتي مركين معجزة لنا محين وجدنا وبينه ووحي عدينا إنه الرسول يهي. إذن دينتي نبي محمد لو سوري بوردن كتاب كقرآن باو أصله نبي محمد إنه النبي يهي حقات كأوغانيسة قرآن كان نبي محمد إنه النبي يهي قرآن كان باشيغية السلام مركاه إلهي وحي نقل هدلي نولشي نوردن إنه إصلاحيه وحي وكو قرانا وقرآن كان مركا قرآن كل وضع الشيء بودي برقرة مرنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي نبدي ساعدين مرنا وحي لين فريين نقول قرنه شيء hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahayay markaa ma inaynu akhrino qura ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadabburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi
inaynu si xoogan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimeynaya kitaabka si uu kala akhris badan yihiin salaada ayaa idin tukinayaa la yidhi kuma aqra'ukum likitaab illaahi baa la yidhi ka idinku qiraa'o fiican cod qura maaha waagii hore ninka qirada wanaagsanle wuxuu ahaa alaqra likitaab illaah ay alafham limaqaasidih waxaa ninka ugu aqoon badan leh waayo qur-aankan baa asal u ahaa xataa haddaad dhimataan oo xabaala laydin kala waayo nebigu qoladii uxud markii la aasayay muxuu yidhi labadii nin ee xabaasha lagu ridayeyba kee baa la horumarinaya xabaasha aqra'hum likitaab illaahi buu nebigu yidhi xabaasha waxa ku horridaan ilaahay kitaabkiisa kii akhri badan haddaad dhimatana saasaa loo kala maamuus badan yaho saa qur-aanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxaa loo kala mansilo sarraynayaa iqra' warattil kamaa kunta turattil iqra' wartaqi baa la yidhahaa akhriyo kor jannada aayadday kaaga dhammaata halkay joogtaa baad joogsanaysaa idan booska sare aakhiro jannada iyo magac iyo maamuuska lagu kala leeyahy xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore ee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab qori kuma toose xataa luqada carbeed masaadir alluga alcarabiya fi lqur'aan haddaad barato kamiyadii ugu ballaadhnayd baad haysaayo luqa carbeed xataa usluubkaaga luqawigaaba xataa kor noqonaya oo haddaad fahamto kitaabkan qur-aana iyo erayada ku qoran markaynu kaa soo dhaafno waxaan leenahay qasdiga weyne qur-aanka ka dambeeya akhriskiisu waa in la fahmo oo lagu dhaqmo rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim ducadii nebi ibraahim ilaahu waxaad ka soo dhex saartaa mid qur-aanka ku akhriya oo cilmigiisana bara oo taskiyeeya tarbiyeeya ereyga yuzakiihim baa ducada nebi ibraahim u dambeeya laakiin saddexda aayadooda kale qur-aanka ah ee masaladan ka warramaya xagga horey soo martaa huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim maxaa ku xiga marka wayuzakiihim ibraahim yuzakiihim tuu dambaysiiyey markuu ducaynayay laakiin ilaahay markuu sheegayo saddexda jeeree qur-aanka ay meelaha ku soo aroortayba yuzakiihim tuu soo horraysiiyey oo ah dadku intaanu qur-aanka cilmigiisa usii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbigaa raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo qur-aanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa qur-aan akhris ku dhan maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa ma jtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul isuguma yimaadaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo laba shay samaynaya shayga koowaad waa maxay iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa maxaa ku xiga wayatadaarasuuna qiraa'o qura lama rabo waxaa la rabaa daraasa lilkitaab baranaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdo ilaahay sakiinuu ku soo dejiya sakiinadu waa xasillooni bini aadamka nolosha waxa ugu dhibta badan le waxaa ka mid ah ama dunidaynu maanta joognaa stress and anxiety ayay ka warwartaa soo maaha dunidaynu maanta ku nool lahay alqalaq waاlikti'aab wاlidiraab
xasilooni la'aan iyo warwar iyo walbahaar iyo baqe iyo waa dunidaynu maanta joogna ku soo ururtay dhakhaatiirta walbahaarka iyo waxaa ka shaqaysaa wadannada qaarkood bay waxay ka badan yihiin dhakhaatiirta kale oo dhan marka la isku daro caafimaadka intiisa kale oo dhan psychology and psychiatry baa iskaga badan bay yidhahdaan wadannada qaarkood macnaheedu waa maxay bini aadamka warwar baa wada haya mid hunguriguba warwargeliyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwargeliso baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwarka waa warwaraya ilaahay wuxuu leeyahay haddaad qur-aanka intaad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira aad daraasaysid xasiloonaa kugu soo degaysa warwarku wuu kaa tegaya alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub warwarku wuu kaa hadhaya haddaad warwar isku aragto qur-aanka iyo dikriga laazim waqashiyatuhum alraxma baa ilahay yidhi ilaahay naxariistiisa daboolaysa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaa isku xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamay iyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur-aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum almalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhawayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahay maxaa wax u baranaysaan iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socaykaa maaha hunguri dee aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid ha lagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka waran qofka bini aadam sheega iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan naguna hebel waa madaxweynihii waddanka waa wasiirkii sacaadatul-wasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegaya anaanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan 10 kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaa lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahay waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikata almuqarrabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynaynaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummadii hore ee tagtay iyo taariikhda dunida soo socotay naar iyo janno iyo xabaale iyo qabri iyo xisaab leh waa ku jiraan waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culimada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga sayniska bartay waxay leeyihiin akthar min 1000 aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa 1000 aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahay ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan uu ka warramaya oo weliba waxaasoo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiira ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira intaasoo mas'alo tib iyo wax loo baahan yahay waxaa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yahay oo dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yahay oo dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yahay oo dhan baa ilaahay kaga warrama qur-aankan waxaa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa qur-aanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclopediad sidaa
encyclopedia soo ma taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhay baa inta la isku ururiyo ayaa la yidhaha waa encyclopedia oo mawsuucada may ku qorantay kani waa xaqaa'iqdii rabbi uu ka warramayay wax walba uu ka sheegayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay ilaahay ku tilmaamayo wax kasta oo bini aadam u baahan yahay baa ku caddeeyey baa ilaahay leeyahy waxaan kaga tegay ma jirto idan waxaa ninka qur-aanka qaybay waxaa laabtiisa ku jira mawsuuca rabbaaniya buu xifdisan yihi laakiin waa mawsuuco furayaal u baahan waxaad u baahan tahay waa kunuus ee inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhahdo qur-aankii waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midi soo qooshqooshayna waad wax weyn baad ka dhigtay oo wakhti weyn baad gelisay ma lihin waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira haddaad dhuuxdo oo gaadho kan waxa ku jira yakfiik fi lxayaa kulliha walidaalika mawsuuca raggiina waxaa la yidhi waa xufaad macnaheedu waxa weeyaa mawsuucaadkii dunida ugu weynaa baa laabtiina ku jira ee waxaa u baahantiin inaad faktaan markaa furfuris bay u baahan tahay aayad waliba marka sidaa la yidhaahdo waxaa ka soo baxaya intaasoo xukum oo sharciya waxaa ka soo baxaya intaasoo masalo kowniyo ay ka warramayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qadiyadood oo dhaqaalo ay xallilayso waxaa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qiso uu ka warramayso yaa ka warramaya waxan oo dhan anzalahu aladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard ilaaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxaa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dejiyaa lagu yidhi imika innaga haddii layna yidhaahdo khabiir baa yimi haddii lagu yidhaahdo ka war dadku waxay odhanayaan khabiir hebel dhakhtar hebel oo khabiiraa yimi waxay yidhahdaan qoladan psychologigu class baa la keena dabeetana IQ-goodi iyo waxbarashadoodi iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib baa waxaa lagu yidhi waxaa laydin keenaya macallin khabiirah oo kuwa khatartee laga dambeeyaa dabeetana macallimiintii caadiga ahayd unbaa loo keeno aanay garanaynin laakiin ardadaa waxay rumaysan tahay inuu ninkani yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo classku bay yidhaahdeen nataa'ijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhammi way isbeddeshay classkii kale way ka sarraysay macallinkanina wax ka badan muu dhigin bay yidhahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxaa isbedelay bay yidhaahdeen waxaa isbedelay bay yidhahdeen maskaxda dadka maskaxda bini aadamku bay yidhahdeen waa saa loo forge gareeyo waa saa wax looga dhaadhiciyo walidaalika baa waxaa la tilmaamaa qofku waxa waad qaban kartaa hadduu is yidhaahdo bay dhahay waxaa jira maalan berigii hore dream mile waxa la yidhahday sheegi jireen mailkaan 4 minute ka badan bini aadamku 4 minute ka yar hal mayl kuma ordi karaa la rumaysta oo xataa la isku dayay scientifically in la proof garayo saasaa la iska dhaadhiciyey nin dhakhtaroo ingiriisi unbaa yidhi war waxaan suurtagal maaha roger banner la odhan jiraa yidhi may dhakhtarna wuu ahaa orodyahanna wuu ahaa waa la jebin karaaye waa inaan tijaabiyaa mudduu waday wuu soo kordhiyey wuu soo kordhiyey 4 minute 12 second 4 minute 5 second wuu soo waday wuu jabiyey dabeetana waxaa la yidhi cajab nin baa soo baxay dunida mucjiso oo in yar kadib baa mid australia jabiyey sanadkii labaad 300 oo nin oo dunida ka mid ah orodyahankooda jabiyey 300 oo nin waxay leeyihiin marka hore dadka la cajsi geliyo la yidhi lama dhaafi karo 4 minute ninnaba ma dhaafi karo waa limitka bini aadamka laakiin waxay leeyihiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheedu waxa weeyaan waxaa sidaan mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaan macnaheedu waxa weeyaan risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nebi maxamed ba inuu nebi ahaa wixii proof garaynayay wixii caddaynayay iyo risaaladii loo soo dhiibay nebi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadam oo yar markaynu baranno
hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bugaag oo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeyaa markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkilada bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybayoo bes dabeetana nin waalan unbaa saa yeela nin waalan unbaa idhaa qur-aankii waa anigii qaybayoo dee malcaamadii iyo qur-aankii arrinkoodii wuu dhammaaday qur-aanka waxaad u qaybaysay waxay ahayd inaad furfurto inuu kuu fududaado saad u furfuri lahayd waa ilaa haddii kale qaybistiisu maxay soo kordhinaysay haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba intaasoo gabaya intaasoo heesay hayaan haddii uun hadal la qaybayo intuu noqdo bes halka aad ku ridayso muu ahayn danta laga lahaa waalidkaa dantuu qur-aanka kuu qaybsiinay taa ma ahayn qur-aankaa la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadkii ku soo arooro o dhan inaad soo ururiso oo aad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horreeyey maxaa ka dambeeyey saasay macno ku samaynaysaa aayaddii oo qur-aanka o dhan intaad isu keento marka aad furfuri karto fahmi karta baa loo baahnaa idan qofka qur-aanka qaybaa jaranjaradii hadduu cagta saaray maaha wuu dhameeyey hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxa idin la fahmo halka loo baahnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur-aanku wuxuu ku soo degay nebiga 23 sannadood waa loo yaryareeyey maxaa loogu yaryareeyey inay fahmaan daraaddeed inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyey dabeetana kolba in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto dhacdooyin kala dhacaan baa in kala soo degaysay marka qur-aanka oo dhammi noloshaa fasiraysay innagu isagoo duuduuban baynu haysanaa dhammaystiran lo intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro 2 sano ninka gaabiyaana qur-aankii oo dhan waan qaybinay oo cumar iyo abibakar iyo raggii rag ahaa waxay 23 sannadood baranayeen ma sanad baynu inagu ku gabagabaynay maya waxa weeyaan wixii ay ka rabeen waxaan ahayn baynu inagu raadinay inagu waxaynu raadinay alfaadda inaynu ilaalino qur-aanka markaad baranaysay waxaa la isku dayay makhaarijta in lagu saxo oo sifaadka lagu saxo oo sida loogu dhawaaqo lagu saxo oo lagu ilaaliyo waxaa ka sii muhiimsan in lagu ilaaliyo macnaha uu sheegayo iyo aayaddu shay sheegayso iyo kelmadani waxay sheegayso iyo aayaddani waxay ku soo inaad kaasii fahamtaaba waxay ka muhiimsan tahay inaad dhawaqeeda fahamto ma aha inaan leeyahay dhawaqu wuu liitaa maya dhawaqa sidii uu nebiga ugu soo degay in loo qabto qur-aanku waa muhim laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno marka waxaan idin leeyahay haddaa bilowdeen qur-aankii mar haddaa qaybteen haddaa bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآنك أفرتا آيادات أيا لفظ التدبر كصاروري إن وحلا فرصة
afartaba ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy miyaydan u fiirsanaynin miyaydan ku tadabburaynin afartan aayadood labana waa maki labana waa madani laba intii maka la joogay saad iyo muuminuun labada aayadooda ku jira كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يا فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ما كي كسودك لبنا ومدني سورة محمد يا نساء مياه لبدا كشرانا ومدني يعني وحلت المام يا قرآنكو هدي مكان لتشوغين ينوبة هي إن لو فير صده هدي مدينة لتشوغين إن لو فير صده إلهي وحكو عيبي قالوا منافقين مشركين اسكو ضدر قرآن كان يوفر سنين بالليل تدبركو كلمته أفريا فرتن شربي كلمة دبر قرآن كصارت جدري وحي كصارت أصل الكلمة معاني ذا دو حكم ذا الظهر نبرك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ومن يولهم يومئذ دبره ولا مدبرا ولم يعقب إذن دبرك الله يدها حقا نبي حقا هو قبل ورا حقا دبنا ودبر مركز دبدا كسي عام بعدين دبر لسيد هذا لكن تدبركم حويه مركز تدبركم حويه هي بيد هذا العلماء adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisa qoray inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ihaatad ku samaysay waxaad isku dayday inaad waxa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxa ilaahayna leeyahay marka la inama oran quraanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macna badhu dhaadhicin waxa la leeyahay afalam yatadabbaru warmiyaanay quraanka dhan walba iska taagin baa la leeyahay tafakkurkooda iyo say u fakarayaan dhan walba quraanka miyaanay ka eegin ninka quraanka dhan walba ka eega ma gaaloobi kara weeyaan waayo gaala ilaahay muxuu ku ceebay afala yatadabbaruna alqur'ana munafiqiinti am ala qulubin aghfalaha afala yatadabbarun أيعرضون ولا يتدبرون القرآن ميكتشيسني القرآن كأفير سنمايان أم على قلوب أغفالها بل على قلوب أغفالها قلبك قوة حدم بإلهي سبحانه وتعالى كوي هرنا وحلقة الماما وإلهي سبحانه وتعالى وليه مركي الله الشيء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال دبا إلهي ميان القرآن أفير سرود والبكائي ووايو ولو كان من عند غير الله قرآن كان يهدوك إيمان لها عدان الله أحين محادع لها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اسبران برين اسبرين قد دلولوين بدن بالهيل لها قاري ميلا روحو كنت الماما يا وفلسفيكيشن تست waxay yiraahdaan yani qolyahan cilmi baarka sameeya marka jaamacadaha iyo meelaha kan la joogo meelaha wax lagu baaro nimba baxthi sameeyo waxbuu soo ogaadaa waxa uu soo ogaaday nadariyad buu keenaa uu leeyahay waxa caynka weeyaan intaan mujtamaca cilmiga aqbalin nadariyaddan waa loo soo bandhigaa مجتمع علمي مركا بحث قال الله صوب بندقو وحلا يسكت ضيا إن لا الضره ولا بريو نكاسي وحو شيء دم والبين لقى قالوا الله موتشيو إن دمي كرتو هدي دمي ويدو مركا لوايو وح رأيي الدلولية ما إكسبيرمنتا مع علمي بارسو أركت دا الدلولية هدي لوايو وحلا إذا دوا أركت علمي مصافك علمي قابي قاعد مركا وحلقو قراء الكتب العلمية قاعدة منظمة لقاطه دبتنا واحد فلسفيكيشن تست بالله هذا وحلا مريو نفس الشيء بإلهينا ليه مريا قرآن قبل وحيلهينا ليه سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القرآن قرآن كان ميانا يوفر سنين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بإلهي ليه إلهي عدانا هين هدو كيما هدو وده كتاب موسوعة
oo aakhiriya adduun ka warramaya oo janniya naar ka warramaya oo dhaqaaliya siyaasad ka warramaya oo taariikh hore iyo taariikh dambe ka warramaya oo sharci ka warramaya qaanuun madani iyo qaanuun jinaa'iya ka warramaya oo kownka iyo ishaaraadkiisa ka warramaya oo wax walba sheegaya waa mawsuuca haddana aan wax isbaraanbarinaya wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbi alcaalamiin inuu ka yimi waxay sheegaysaa inuu nebi maxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay markaa wuxuuna leeyahay qur-aankan dhan walba ka eego oo gaalkaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye munaafaqaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye innagana waxaa laynagu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka maxaa ku xiga okay kitaabkaa laynoo soo dejiyey innagana waxaa layna yidhi waa mubaarak waa barakaysan yihi wax waloo khayra baa ku jira maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi baa ilaahay yidhi waliyatadakkara ulul albaab danta laga leeyahay lama odhanan liyaqra'uu aayaatihi ee waxaa la yidhi maxay liyadabbaruu aayaatihi markaad qur-aanka qaybtay jaranjaradii baad isa soo taagtay qur-aanka looga baahnaa halkaasaad jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahan tahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kugu filan walidaalika baa culamo waaweyni ayaa waxaa la sheegaa aakhirul cumrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyey haddaan qur-aanka ku bixin lahaa hadda waa nimanaynu a'immo u haysano waa ibnu taymiya waxaa la yidhaha markuu gaboobay waxyaabuu ku calaacalaya waxaa ka mid ahaa haddaan wakhtigaan wax kale ku bixiyey qur-aanka ku bixin lahaa wax badan oo kaleo uu baadhay oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan qur-aanka ku bixin lahaa baa kasii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baadhistiisa tiro badin lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeennu kaa qafilanee munaafiqiinta lagu sheegay ama kaa mushrikiinta lagu sheegay la yidhi qur-aankaba u fiirsan maayaan afalam yadabbaruu lqowl kuwa lagu sheegaya inaynan ka mid noqonin ee inaynu ku biiro kuwa qur-aanka u fiirsada oo kuwa qur-aanka u fiirsada waxay kala tagaan macno dhammaanteedba kuwa u fiirsan waaya bal u fiirsa ilaahay siduu u ceebeeyey ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan baa la yidhi miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha waa laba aayadood oo kala gedisan ilaahay wuxuu leeya yaa ka dulmi badan mid qur-aan loo sheegay oo ka jeestay oo bal mid hayo isagu ka jeestay dhegayso kan waaba loo sheegaya mid isagu laabta ku sitoo ka jeestay qur-aan nin laabta ku sita oo garanayo xifdisan oo aan iskuba dayin inuu fahmoba aan iskuba dayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leeyahay yaa kaa ka dulmi badan waayo nin qur-aan sita oo le waxba garan maayo wuxuu la mid yahay nin biyo iyo raashin sitoo yidhaahda gaajo iyo haraad baanu liitaaya waxaan cunaysiiya maxaad odhan lahayd waa nin yaro waalan soo maad tidhaahdeen haddaad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walbay ku raran yihin oo dadka dawarsanaya haddaad aragto maxaad samayn lahayd oo le aan waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabaya i siiyey waxaa odhan lahayd kan waa mactuuh shooya dhaandhaan soo maha waxbaa ka yaro maqan nin qur-aan hayoo le yaa waxbaro meel kale orordaya oo waxbarasho kale raadinaya waa shooya mactuuh waayo wixii bini aadanba baran lahaa ee cirka ka soo degay ee rabbu samaawaat uu soo dejiyey ninkoo agtiisa taalla ee wax kale raadceeyey reer banu israa'iil markii almanu wasalwa la siiyey maxay yidhaahdeen basalya baanu doonaynaa miyay yidhaahdeen iyo cadas iyo waxaa loo jeedin waa nimankii waxaa la siiyey waxaa la mid ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwaa ilaahay ku tilmaamay kuwaa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan
قرآنك نبي محمد عليه الصلاة والسلام عدة مشغول كقوة سببت الله أمانة وكامرك خيركم من تعلم القرآن وعلمه من تعلم القرآن ما هب بألفاظه وحروفه فقط ننك حرفه سبرتي وقول ما ومن تعلم القرآن بالليل القرآن كنك برتي لفظا ومعنى برتي رسالة دا سيئوغادي وهددك رقاد سيئي كاس خيركم با النبي محمد كشيغية وان كينكو خير بدن إلهي وحين لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دراسة وعلم بينو باهن إن نبرنه حلقة يا بدتك بدين لو يري تو أدقي قرانكو في عربي كسي أدقو قران كسي أدقو هي في جريسك فضل بابا مالين إنسان قرانكو ما عتك في عربي قران ما عتك إلهي وحلي فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين إلهي وحكت المام يا كتاب ميسر بتيسير الله سبحانه وتعالى وكتاب فضد بار ربي يري انت صفني يوم القرآن وذا وهدنا فضد ويا بإلهي اللي إنك القرآن كبرنا وأن قانون برانيا وسياسة برانيا واقتصاد برانيا وعقيدة برانيا وشرع برانيا وأخلاق برانيا وتاريخ برانيا وآخرة قيامة برانيا وذكر برانيا وإلهي سألوا بريا برانيا وسألوا عبادة برانيا وقال لما وحيتي برانيا وحاسو علمي إنك وضع برانيا هيستير هذا وحاسو دمبرو هذا يصير هذا حق بني آدم كبعض الدون تيه بكون عيا أنت بموجود وجان كرتيت إن يروا أنت كم ذا كوا الولاقي دونان لكن هذا ربطه أنت بين دوده وجاته قرآن هم برا أنت بهذا ربطه إن دوده وجاته كتابكم بين تبقوا القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بإلهي وآيات عد بقرآن كان كويه هي كوا علم السيء لا بتوده ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وحنولني ببا إلهي لي ابن آدم ككتاب فصلناه على علم أنو كلبح بحني وأقون لقو كلبح بحيي با إلهي لي كتاب أقون إيا علمي لقو كلبح بحيي با نوكي نيبا رب إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحا ربي كنت المامي ينو يهي نورك وحلقو إفساده لايت كان محل وفليه إن وحلقوا يفسد صماه شيء قاعد ربطين هذا عركتين تسي واضحة واركتد أي توج كان ينالك اللي ينوي فيه كاميرا داسيني سي واضحة وحصوري كرته هدي نالك اللي دميه كاميرا داس يصور عن وضع موقر إنهم بيسوا صارسة إلهي القرآن كوحلي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا بإلهي نورا مبينا نور عبا لله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فآمنوا بالله ورسوله حكوا حقا والنور الذي أنزلنا إلهي الرمي الرسول كي سبا إيا النور كي أن سودة شيبا إلهي لي اللايت إف كي أن دي سودة شيبا محو يفنيا الحياة كلها نرش دمان تدبو يفنيا هداد آخرة دوني سوي سقال لغوي فيها هداد دونك دوني سوي سقال لغوي فيها هداد شرعية قانون دوني سوي سقال لغوي فيها هداد سياسة نقالة دوني سوي سقال لغوي فيها وحاد باهنتي نرش ورنا سقال يفنيا ونور يستضاء به ونور مقدية لك قبحه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بإلهي نبي محمد كوي الرمية وهيلية تاغيري محي راعي بالليل واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك أيها الإخوة الحسن بن العلي بوحليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم
فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار بولي سواد الله اللي يقول كويدين كيدين كوري صحابة النبي وشيغيا وحيا هاي يقول القرآن كوحور كي الرسالة حق إلهي ويمي تصالح هدي ما أنت القوي هذا مدحوينها مرايكا كاكو صادر وراق محاضر الله وأديك كوكو صعدتها هبلة قال وراق بقى يتم بدر الله يدو حاجة كتم مدحوينها مرايكا مدحوينها مرايكا كان وين كلاه متى كلا واحد سلا أكتس الدولة دي العقية حوالي وحبايا لهم هم جورا كاجا كشرة ومحمل لقيه اللي كران كاس تكلا أديك مركو جار كوكو صادر وراق ذا سيدا ديال له متسكت تبردلو ميلها شوقا موجين له تمر الله يضرب الورق ذا آخر مدحوينها هاي صادره بس واحد أوران الله يدور في إنجليز جاية مقالة ويقانا سيادو آخر ده between the lines واحد كستوكو قرآن سيادو فهم كرتو واحد أوران الله هدية وحرف سنة معناه حاضر مالين هدات سيدته الرسالة إلهي كتبي إلهي الدنيا بس كلها عرك يردلك يوحورنا إلهي لها أي وراق صادري وراق ده مقرن يسان وقرآن كان هيستان ده إلهي بعرك كصادري وملك الجبريل سودي بي ودبتنا النبي محمد الله كان عليه الصلاة والسلام النبي محمد وين سو قارسي عليه الصلاة والسلام وراق راس بقوتي وراق راس مركا إنه ربنا إنه آخرنا ما حي أباها أنت إنه سدا وآخرنا وراق دي مدحوينها هي أنا منك وحوجا هيستوقوا صوت دريبة للرادي سعيد تقانه وراق ضايع للرادي هي مركا قف كوكا قونت بدن يوجا قونت بدن وين للرادي إنه آخريه إنه الشرح وحقو قرن سادردد حسن بن العلي وحلي إن من كان قبلكم رأوا القرآن الرسائل من ربهم كويدي كيدي كهري قرآن كان وحيوار كي ينبون الرسالة حق الله وقتبي دبتنا فكانوا يتدبرونها بالليل هبين ودن ويوفير سنين هبين كي صلاة الليل كبرك الله كعوه عبادة قول الله ما كعوه ووقتي dunida aan sanqari jirin oo caqtu goodo oo sanqadhu goodo imika hadaad istiraado halkan istaag cod baa baxaya meel walba saani wuxuu maqlimaysid habeenkii laakiin hadaan cod jirin gaadhiga madaxtooyada agteeda maraya waad maqlaysaa sanqadhiisa imika si maqlimaysid halka maraya waayo dawda tira badan baa ka sokeeya habeenkan la kacaya macnaheedu waxa weeyaan qofku waqti aqligiisu uu soo jeedo oo si fiican uu wax u fahmi karo oo wax fiican baran karo inuu istaago oo quraanka akhriyo quraankana akhrinayaan iyaga soo akhrinaya isaga qofku raba inuu fahmo si tadabbur loo akhriyo walidaalka wala tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam salaadaha dadka markuu tukinayo si fudud buu tukan jiray laakiin markuu kaligii tukanayo quraanka akhriskiisa wuu la noolaan jiray آيات عذاب هدو صامر إلهي بك مجنجل جري بالجنة هدو صامر إلهي بويدسن جري وكنت تدبر جري وكخشوع جري وإلمين جري قرآن كان بوسكت دينو فهمه وحاو كور رميه إذا مركه هبيك كل كعيا للي الصلاة الليل بالله كعيا دتك وحيو فهمين إنه أجر للهادين يا عباده أجر يا عباده ده وحكسي مهم سن إن لفهمه إلهي كتاب كيسو وقت أن سنقر يبوغي وحبتون جرين إن أتسقط ضيده ربي قال كلام كيسين هذا خرده إذن أيها الإخوة هذا ضربت القرآن كأنت فهمته قلبك قال الله أرورية إلهي وحلي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قرآن كان وحوانا وقصوا كان تيبال لمن كان له قلب حي يقف له قلبك هدوك الضبال مدن بيقول انتو كبطوا يا خلاق حمد يدغر حمد كبطوا والضبال ما مركها هدو الضبال ما وحفي يعني ما قالان لكن هدي لا صفيه مرايده غورما لا اسكو اركا دي اسكو كوبطو مرايده تاتر هذا ما حكو موقن اسكو geedu ma darka daadu isarki maysid laakiin hadaad safaysa maxaad arkaysaa markaas aad saarkaysaa qalbiga bini aadamkuna waa saas oo kale hadii xumaha laga safeeyo cibaadaadkan iyo dhikrigan iyo astaghfirullah kan iyo macasido laga dheeraado safeeya hadii laga safeeyo waxa soo baxaya quraanku waxaad u fahmaysaa si aanad weliga u fahmi jirin si aanad hore ugu fahmi jirin baad u fahmaysaa
ولذلك وحل يدي قرآن كان وحكوان توبة لمن كان له قلب مت قلب حي يله أو ألقى السمع دكتر الرعيي هاي هذان دكت يا أفكو اسكو ما فيعنا اسكو مرمى شقيان هذا لي سوح ما مغليسه سفي عم wax maqli maysid marka aad rabto inaad wax maqasho maxaad samaysaa waa balaamo sabatina yani afka la xidhaa si dhegto maxay ay si fiican wax ugu maqasho gaaladii markay rabeen quraanka inaan si fiican loo maqlin maxay yiraahdeen la tasma'u li hada alqurani maxaa ku xiga walghaw fihi war quraanka dhegta u raaricina bay yiraahdeen ku buuqa yaan la isba maqline markay meeshu buuq noqoto waa la iska kala tagi ilaahayna muxuu inagu yiri وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إلهي نوحي هذا القرآن كما قشان الله أخريه آموسا ودقيستو قلبك الرارعية بالليل وهو الشهيد بالغة المام أو ألقى السمع وهو شهيد شهيد وهو حاضر القلب غافل عن هين مرمر بقفكو دنو جوغا دنو مقيه سما درجة dadku markay salaada yara sahwiyaan magaaladu xisaabinaya soo maray alxamdulillaah rabbil caalamiin oo iska wada xarabku iska socda laakiin maskaxdu maxay ku maqantay meel kale ay dawaafaysa shahiid matid markaa xaadir matid carabku ma waxa akhrinaya xaadir waxa tahay marka aad ku tala jirto waxan inaad si fiican aad u fahamtid aad sheegayso ولذلك أيها الأخوة لينذر حيا بايلهي قرآن كم حلو قلت لك لين لو جد جم حي مد النار وحين أباهنا يمرك نولشين وحي أباهنا يدور من القرآن كم بكويا الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول حكوا حاجة إذا دعاكم لما يحييكم إلهي الرسول أقبل بالله مرك يدون كويا ران محي وحن نولشين يكشرت وحكون نولان إنسان waxaan noloshaadu ku jirto soo cid walba kama dhageysatee dil wada mustaqbalkaaga iyo noloshaadu dhan baa lagu sheegaya waxay ku jirto ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkii dhageysta marka la idinku yeedhayo wax noloshiina ay ku jirto quraankan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa muxuu ka yahay laba shay buu wada daweeyaa shifaa ila abdaan weeye jidhka wuu daweeyaa شركة قرآن ولا اسكو أخرى ولا اسكو دوية ما أنتنا خاطر وين المسلمين وحي عضيسي إنه عدول بالدوية قال يا مسلم حطا دكتور أحمد القاضي يبحث دي ساخرية نتك قال أحمد القاضي ودكتور وين مسلمها عرق أمريكان كتشوغي وحصل رئيستي markuu dhakhtaradii wadnaa iyo samabada bedeli jiray buu ahaa markii uu pensioniska gaadhay ayuu meel yaro private samaystay dhakhtaradii waaweynaa uu ka shaqeyn jiray dadka laga quusto oran jiray ii soo wareejiya wixii dhakhtarku shaqo loo waayay loo taag waayo dadkan kansarka qaba iyo AIDS iyo waxyaaba dad la yiraahdo 6 bilood baa ku hadhay geeridii ama bilbad si noolaanaysa ama saddexda ay oran jiray saddexda xaqan ha joogaan aniga la igu wareejiyo wixii binaadam wado dhan laga quusay markaas wuxuu ku tijaabin jiray axaadiista nabiga waxaan ku soo arooriyay quraanka malab iyo xabaasuud iyo quraan lagu akhriyo qofba quraan lagu akhrinaya dabeetana wuxuu ku xidhaa qalabkan qofka temperature-kiisa dhiiggiisa wixiisa kana eegaya intaan quraanka lagu akhrinin meel buu jooga quraanka marka lagu akhriyo si fiican buu daadagaya حتى وحو تجابيه قرآن كلا نوع إن أخريه قرآن بغير تجويد إن الأخريه هي قرآن مجود وصفي عن الأخريه قرآن كمجود كتأثير بطي كان لقى تبرسيه حتى وحو تجابيه أرمع عد كيهي أف عربي لقوق النية يوصل قرآن كلا أخريه بكو أخريه وحبه يسبدل واي إحنا قلت هذا شركة وكعافمات وحو كلا عافمات كي قلبك يمدوية قلونا عقيدة حمدة يدين لعنته أخلاق حمدة يدقر حمدة وحلا لي وحب بني آدم كمرض نفسي اجتماعي كله عدم مدوكي إذن أيها الأحبة
kelmadda waan soo koobaya waxay ku kooban tahay qur-aankii baa la dhameeyo iskuullaa la dhigtaa oo qur-aankii waa laga tegay waa nacasnimo halkii kama dambaysta ahayd weliba ah waxaan idinka rabaa qur-aankii baa dhammayseen haddaa bilowdeen markaa waayo xifdigiisii uun iminka sidii loo akhrinayay uunbaa haysaan haddaa bilowdeen ina hadda ka kowsataan oo hore uga socotaan iskuulladiina dhigta laakiin wakhtigu wuu idinka badan yihi dhallinyaraatiin shaqo kale ma qabataan qof wax kale ku mashquulayaa ma jiro imise saacadood baad maalintii sheekaysaan kuma run ii sheegaya intuu saacadood uu sheekeeyo maalintii ma jira hal nin oo ii sheegaya run oo leh anigu intaasaan maalintii sheekeeya haye iskuulka markaad tagto waxaad dhigataa dhowr saacadood baad iskuulka soo dhigataa inta kale maxaad qabataa soo hadal uun maaha hebel baa halkan maray iyo hebel baa seexday iyo hebel baa yimi iyo hebel baa sii socday iyo hebel baa waxaa wax laga anfacadaa ma jiro imisaa t v daawataa dhowr boqoloo saacadood baad iminka soo daawatay sanadkii u dambeeyey waxba ma ka xasuusataa waxba kama jiraan haba aan mansuur adiga iyo kiisa daawan isku mid baa ka tihin waktigii wuxuu ku lumay wax bilaa macno ah marka waxaan idin leeyahay waktina waa haysataan caqli farash oo cusubna waa haysataan dhul wax laga barto tiro badanina waa joogaan qur-aankaa barateen bal horta isku daya macnihiisa iyo sharcigu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo inaad hore ugu tallaabsataan sala allahu cala nabiyi muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamay iyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur-aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum ulmalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhawayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahay maxaa wax u baranaysaan iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socaka maaha hunguri dee aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid ha lagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka warran qofka bini aadam sheega iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan anaguna hebel waa madaxweynihii waddanka waa wasiirkii sacaadatul-wasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegaya anaanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan 10 kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaa lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahay waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikata almuqarrabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynaynaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummadii hore ee tagtay iyo taariikhda dunida soo socotee naar iyo janno iyo xabaale iyo qabri iyo xisaab leh waa ku jiraan waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culimada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga sayniska bartay waxay leeyihiin akthar min 1000 aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa 1000 aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahay ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan buu ka warramaya oo weliba waxaasoo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiira ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira
intaasoo mas'alo tib iyo wax loo baahan yahay waxa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yahay oo dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yahay oo dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yahay oo dhan baa ilaahay kaga warramay quraanka waxa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa quraanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclopedia sida encyclopedia sama taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhay baa inta la isku ururiyo ayaa la yidhaahdaa waa encyclopedia oo mawsuucada may ku qorantay كان وحقائق ذي ربي وكورمي وحول بو كشيء ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء إلى كتب المامي وحكستو بن آدم وبهي بكو عدي با إلهي لي وحن كجت جي ما شرته إذا وحى نك القرآن كقيبي وحى لابتي سكتشرة موسوعة الربانية بحفظ سيء لكن هو موسوعة فريال وباهن waxaad u baahan tahay waa kunuuz inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhaahdo qur-aankii waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midi soo qooshqooshayna waad wax weyn baad ka dhigtay oo waqti weyn baad gelisay ma lihin waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira هذا بوحده أو قاعدة كم واحد كتيرة يكفيك في الحياة كلها ولذلك موسوعة رجينا وحلا يدوا حفاظ معناه يدوا حوالي موسوعات كي دوني دوجوه نبى لابتي نكتيرة وحاو باهنتين أنا فكتان مركها فرفرس بيو باهنتين آيات والإمام كسيدا الله يدعو وحكى صباحية أنت صو حكومة شرعية waxa ka soo baxaya intaasoo mas'alo kowniyo ay ka waramayso waxa ka soo baxaya intaasoo qadiyadooda dhaqaalo ay xallilayso waxa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxa ka soo baxaya intaasoo qiso oo ka waramayso yaa ka waramaya waxan oo dhan anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi as-samawati wal ard ilaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dajiya lagu yiri إمك إنك هدي لا ينايرهذا خبير باي مهدي له هذا كور تذكر حوالي خبير هبل نختار هبل أو خبير أيبي واحد هذا مقولة سايكولوجي كلاس بالك هنا دبتنا أي كيو دي وحبر الشدود دي وحدي بالقياس كدي بوحل ويري وحل يدين كان معلم خبيره وقوة خطرت اللي قدم بياه دبتنا معلمين تي عادي هيدو بالله كانوا أنا يقرنين لكن أرددا waxay rumaysan tahay inuu ninkan yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo classku bay yiraahdeen natiijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhan way isbedeshay classki kale way ka sarreysay macallinkanina wax ka badan muu dhigin bay yiraahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxay isbedelay bay yiraahdeen waxa isbedelay bay yiraahdeen maskaxda dadka maskaxda bini'aadamku bay yiraahdeen wasaa loo forge gareeyo wasaa wax looga dhaadhiciyo ولذلك ما وحلت الماما قفك وحوات قبان كرتا هدو يصير هذا بيداه واحد شيء مثلا بريكي هراء دريم مايل وحلا هذا شيء يشيل مايل كان أفر منت كبدا بين آدم كو أفر منت كير هالمايل كو مورد كرال الربايست وحتى الاسكودي ساينتيفيكالي لبروف كرا يساسا الاسكادا داي نن اختراع انجليزي وبايد وروح عن الصورة قلمها روجر بانر لورنشرا يدي ماي اخترناوها ورديها نوها ولا تشبين كرايه وين انت شابيه مدو ودي وصود كرديه وسو كرديه افر من لبيه 10 سكند افر من 5 سكند وسو ودي وشبيه دبتنا waxa la yiraahdaa ajab nimba soo baxay dunida mucjiso in yar kadib mid Australia jabiyay sanadkii 300 oo nin oo dunida kamid ah wardiyahankooda jabiyay 300 nin waxay leeyihiin marka hore dadka la cagsi galiyo la yiri
lama dhaafi karo 4 minute ninaba ma dhaafi karo waa limitka bini aadamka laakiin waxay leeyihiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheedu waxa weeyaan waxa sidaan mucjisadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa sidaan macnaheedu waxa weeyaan risaaladii nabi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nabi maxamed ba inuu nabi ahaa wixii proof gareynayay wixii caddaynayay iyo risaaladii loo soo dhiibay nabi maxamed si kale haddaan u idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadam oo yar markaynu baranno hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bugaag oo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeyaa markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkilada bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybayoo bes dabeetana nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waanigii dhallinyaradan diinta u kacday wada dadaalaysa dacwad iyo wanaag iyo intii daacada u heelan ilaahay haddaayee dadkaa khayrka daba jooga dumar iyo rag waxay doonayaan deeqda mawlahay intaa waxaa duruus iyo tacliin lagu dadaalayo mid diyaarad raaciya ninkii dooni bad u fuulay taalibulcilmiga dhoofayee debadda aadaya duhurka iyo galabtii waxaa dawro soconaysa dadka khayrka lagu soo dumee lagu dabiibayo muxaadarada darandooriga ah ee laysu daba joojiyey danta looga jeeda ma aha duunye iyo maale dabaqyadii fardowsiya halkuu doortay nebigeennu jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu joognaa xiisadii u dambeysay aynu ugu talagalnay inaynu ku qaadanno dowradeennan aynu u bixinay الدورة التأهيلية التربوية لحافظة القرآن الكريم ardaydu aad bay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ay u dhegaysanayaan ee culimmada u dhuuxayaan cilmiga ay bixinayaan culimmaduna aad bay u mahadsan yihiin wakhtigooda qaaliga inoo huray ee jaaniskooda fiican ina siiyey sidaas daraaddeed sheekh haddaynu warbixin yar siino ardayda halkan fadhida waa ardaydii qur-aanka dhammaysay way kala duwan yihiin muddooyinka ay dhameeyeen goobaha ay ka yimaadeenna way kala duwan yihiin waxay ka kooban yihiin 10 sekatariyadii ugu sarreeyey dalka ardayda qaar baa ka yimid sida ilays sida irshaad nuuraddiin furqaan imaaraadka baxrayn iyo sekandariyada kale macruufka waxaa kale oo iyaguna ardaydu ay ka kala yimaadeen madaaristii qur-aanka oo ilaa 40 madarasadood ardayda qur-aanka ka dhammaysay ee markaa joogtay ay joogaan markaa sheekhu kolley risaalo weyn buu inoo xambaarsan yahay fariin weynna wayna siinaya insha allahu tacaala inagana waxay naga doonayeen in ka faa'iidaysano si toos ah waxaynu u gudbinaynaa fariinta sheekha waxaana leenahay ku soo dhawow sheekh jazaakum allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
مراد الرجل يرجي قرآن كقيبي waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo waxaynu wada ogsoonnahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeyey qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin noloshii ku soo koray saas bay ahayd carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen carabtuna may lahaynba thaqaafada wax qoritaanka waxay ahaayeen oral society thaqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo waxa la jeediyo ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halka ilaahay ka caabudi lahaayeen waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo qur-aankii koowaad ee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay wuxuu ka warramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daaya wanaagga hala sameeyo ilaahay laga cabso meelaha in laga bilaabi lahaa laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq wax akhri idan ayuha alikhwa wax akhrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi qur-aan min qara'a bay ka timi cinwaan waa diinta islaamiga ah waxay ku salaysan tahay waxbarasho aqoon barasho aqoon la bartana waxa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ka ogaadaa buu is ammaanaa la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer kani waa khabiir kani waa caynkan waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi almanduur culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey iyo mid camal oo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno oo dhami waxaad qaanuun lagu dhigo o dhan qaanuun baa physics iyo mid baa chemistry iyo mid baa biology iyo mid baa kana qaanuunka la sheegay waxa weeyaan sidii alla wax u abuuray baynu isku daynaynaa inaan wax ka baranno sidii wax alla u abuuray qofkan bini aadamka sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku daynaa inaynu wax ku ogaano idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu kownkan ku dhigaya qofkii intaa yar ka ogaadaa la odhanaya waa tabiib ama waa injineer waa muhandis waa khabiir waa caalim waa kan kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigiisiiya oo ugu talagalay inaynu baranno anzalahu bicilmih walidaalika ayuha alaxiba waxaad tihiin dad haya ilaahay kitaabkiisii kitaabkaasi saddex waxba wuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno wuxuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno talaawatan qiraa'a
أخرين وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كله أتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأنا أتلو القرآن. نبي عليه الصلاة والسلام حيل فري وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن. أخريا لينا القرآن كان إنه أخرنا ولا ينفرق كو إلهي أمانينا وحقت الماما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة كأنه كتاب كسين تلا لما معناه في عربي كل هذا من ديوان تلا يتلو أخري من التلا يتبع وارها عويا والقمر إذا تلاها وإذا غنرانا إلهي سبحانه وتعالى وحو أمانا يكوي كتابك أخريي الراعي لبدا معنى باللفظ يروي كوب سنية ورتل القرآن ترتيلا سادر هدي أيبا يودم العامد يا قرآنك أرنكو دي ورد ماذا قرآنك واحد وقيبي سي واحد هيدين فرفرته ينو كوف ضد صادو فرفر الله وإلا هذيك لقيبستي سبحيسي وكرنيسي haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba inta soo gabay inta soo heesay hayaan haddii uu hadal la qaybayo intuu noqdo bis halka aad ku ridayso mu ahayn danta laga lahaa waalidka dantu quraanka ku qaybsinay taamay ahayn quraanka la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadka ku soo arooro dhan inaad soo ururiso oo aad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horeeyay maxaa ka dambeeyay saasay macna ku samaynaysaa aayadii oo quraanka oo dhan intaad soo keento marka aad furfuri karto fahmi karto baa loo baahnaa idan qofka quraanka qayba jaranjaradii hadduu cagta saara ma hawu dhameeyay hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxa idin la fahmo halka loo baahnaa نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي قرآن وحو كسو دغاي نبيغا 3 iyo 20 sanadood waa loo yaryaray maxaa loogu yaryaray inay fahmaan daraadeed ayaa loogu yaryaray dabeetana kolba in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto dhacdooyin kala dhacaan baa in kala soo degaysay marka quraanka oo dhami nolosha fasiraysay inagu isagoo duuduuban baynu haysanaa dhamaystiran intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro 2 sano inka gaabiyaana quraankii oo dhan waan qaybinaa oo Umar iyo Abu Bakar iyo rag ahaa waxay 23 sanadood baranayeen مصنف بينه وهو جبجبين ما يوحى يوم وحي يكرر وحنا هين بينه نقول رادين إنه وحي رادين الفاظ ده إنه إلى لأنه قرآن كمركت برنيسي وحل يسكت ده مخارج تين لغوصها أو صفات كلغوصها أو سيد الله قلنا وقال لغوصها أو لغو إلى ليه وحكسي مهم سن إن لغو إلى ليه معناه وشيء يا آيات الشيء شيء كلمة دني وحي شيء يا آيات دني وحي كسود إن تكاسي فهمتها بقى وحي كم مهم سنتاي إن تدوق هذا فهمته ما هينا لا يدوق ولي تمايا دوق سيدي والنبي جو سود جاي إن لقب تقرأ هو مهم لكن وحي نوبة هناي إن ندب النقطة مركب وحنا دليل هذا بلودين قرانكي mar haddaad qaybteen haddaad bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآنك أفرتا آيادات أي لفظ التدبر كصاروري إن وحلا فرصة أفرتا ما إلهي قرآنك وحكولي ميدا أفير سنني ميدا كنت تدبرين أفرتا آيادات لبنا ومكي لبنا ومدني لبا انتي مكلا شوغي صاد يا مؤمنون لبدا آيادات كجرا كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب يا فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ما كي كسودقي لبنا ومدني سورة محمد يا نساء مياه لبدا كجرانا ومدني يعني وحلة الماما يا قرآنكو هدي مكلا شوغينا ينوبا هيا إن لو فيرصده هدي مدينة لشوغينا إن لو فيرصده إلهي وحكو عيبي قالوا منافقين مشركين اسكو ضدر قرآن كان يوفر سنين بالليل تدبركو كلمته أفري أفرتن شربي كلمة دبر قرآن كصارت جدري وحي كصاروري أصل الكلمة معاني ذا دوحة كم ذا الظهر نبرك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ومن يولهم يومئذ دبره ولا مدبرا ولم يعقب إذن دبرك الله هذا حقا نبي حقا وقبل هره حقا دمنا ودبر مركز دبدا كسي عام بحدين دبر لسيد هذا لكن تدبركم حويه مركز تدبركم حويه هي بيد هذا العلماء adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisa qura inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ixaatad ku samaysay waxaad isku dayday inaad waxa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxa ilaahayna leeyahay marka la inama oran quraanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macnaa badhuudha dhicin waxa la leeyahay afalam yatadabbaru warmiyaanay quraanka dhan walba iska taagin baa la leeyahay tafakkurkooda iyo say u fakarayaan dhan walba quraanka miyaanay ka eegin ninka quraanka dhan walba ka eega ma gaaloobi kara weeyaan waayo gaala ilaahay muxuu ku ceebay afala yatadabbaruna alqur'ana am munafiqinti am ala qulubin aghfalaha afala yatadabbarun أيعرضون ولا يتدبرون القرآن ميكتشي سنيا القرآن كأفير سن مايان أم على قلوب أغفالها بل على قلوب أغفالها قلبك قوة حدم با إلهي سبحانه وتعالى كوي هرنا وحلقة المام وإلهي سبحانه وتعالى وليه مركي الله الشيء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال دبا إلهي مياني قرآنك أفير سرودن والبكيئي ووايو ولو كان من عند غير الله قرآن كان يهدو كإيمان لها عدان الله أحين محادع لها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اسبران برين اسبرين قد دلولوين بدن بالهيل لها قاري ميلا روحو كنت الماما يا وفلسفيكيشن تست waxay yiraahdaan yani qolyahan cilmi baarka sameeya marka jaamacadaha iyo meelaha kale la joogo meelaha wax lagu baaro nimba baxthi sameeyo waxbuu soo ogaadaa waxa uu soo ogaaday nadariyad buu keenaa uu leeyahay waxa si caynka weeyaan intaan mujtamaca cilmiga aqbalin nadariyaddan waa loo soo bandhigaa مجتمع علمي مركب بحث قال الله صوبان دغو waxa la isku dayaa in la duro oo la buriyo ninkaasi wuxuu sheegayay dhan walba in laga galo oo la muujiyo inay dumi karto haday dumi weydo marka la waayo wax ra'yiyo oo dalooliya ama experiment ama cilmi baadhiso aragtida dalooliya hadii la waayo waxa la yiraahdaa waa aragti cilmiyo oo masaafka cilmiga bay gaadha marka wax lagu qoraa kutub cilmiya qaacida munadama la qaato دبتنا واحد falsification test بالله هذا وحلا مريو نفس الشيء بإلهينا ليه مريا قرآن قبل وحيلهينا ليه سبحانه وتعالى
أفلم يتدبروا القرآن قرآن كان ميانا يوفر سنين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا با إلهي إلهي عدانا هين هدو كيما هدو وده كتاب موسوعة وآخرية دون كورمية وجنية النار كورمية ودغالية سياسة كورمية وتاريخ هورية تاريخ دم كورمية والشرع كورمية قانون مدنية قانون جنائية كورمية وكون كيا إشارات كيسا كورمية ووحول بشيغية وموسوعة haddana wax isbaraanbarinaya wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cinda rabbil alamin inuu kayim waxay sheegaysaa inuu nabi maxamed nabi yahay alayhi salatu wasalaam ilaahay markaa wuxuu leeyahay quraankan dhan walba ka eego gaalka lagu ceebeeyay inuu dhan walba ka eegi waaye munaafiqa lagu ceebeeyay inuu dhan walba ka eegi waaye innagana waxa la inagu yiri kitaabun anzalnahu ilayka waxa ku xiga اوكي كتاب كان لينو سو دجيه انغنا waxa la yiraahdo waa mubaarak waa barakaysan wax walo khayr ba ku jira maxaa loo soo dajiyay liyadabbaru ayatihi ba ilaahay waliyatadhakkara ulul albab danta laga leeyahay lama odanan liyaqra'u ayatihi waxa la yiraahdo maxay liyadabbaru ayatihi markaad quraanka qaybtay jaranjaradii baad soo taagtay quraanka looga baahnaa halkaas jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahan tahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kuugu soo filan walidaalka baa culamo waaweyni ayaa waxa la sheegaa aakhirul umrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyay haddaan quraanka ku bixin lahaa haddaba nimanaynu aayimo u haysano waa ibnu taymiya waxa la yiraahdaa markuu gaboobay waxyaabo ku calaacalay waxa kamid ahaa haddaan waqtigan wax kale ku bixiyay quraanka ku bixin lahaa wax badan oo kale uu baaray oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan quraanka ku bixin lahaa ba ka sii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baaristiisa tiro badan lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeenu ka qafilanay munaafiqiinta lagu sheegay ama ka mushrikiinta lagu sheegay la yiri quraanka ba u fiirsan maayaan afalam yadabbaru alqawl kuwa lagu sheegay inayna ka mid noqonin inaynu ku biiro kuwa quraanka u fiirsada oo kuwa quraanka u fiirsada waxay kala tagaan macna dhamaanteedba kuwa u fiirsan waaya قالوا فرس إلهي سوء عيبي إلهي وحيدي ومن أظلم يا كظلم بدن بالليل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولا بقى يدودك لكتسن إلهي وحيدي يا كظلم بدن مد قرآن الله شيء وكتشستي وبل مid hayo isagu ka jeestay dhigayso kan waaba loo sheegay mid isagu laabta ku sito ka jeestay quraan nin laabta ku sita oo garanayo xifdisan waan isku badayin inuu fahmaba aan isku badayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leeyahay ka dulmi badan waa nin quraan sita oo la waxba garan maayo wuxuu la mid yahay nin biyo iyo raashin sitoo yiraahda gaajo iyo raad baanu leetaaya waxaan cunaysiiya hada ran lahayd waa nin yar waa la soo ma tirahdeen dad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walba ku rarayn oo dadka dawarsanaya haddaad aragto maxaad samayn lahayd wala waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabayay siiyay hawlan lahayd kan waa mactuu shooya dhandaan سما حباك يا رمقان نن قرآن هيولا يا وحي برو ميل كلا وردية وحبرشك هذا رادينية وشوية معتوه ويوحي بنا آدم ببران لها عركة كسود جاي رب السماوات وسود شيء إنكو أختي ستالله وحكى للرادعية فربرو إسرائيل مركي المن والسلوى للسيم حيد هذا بصل يا بنو دوري نبي هذا يا عدس يا وحلو شيدين وأنا ما كي وحلسي
waxaa la mid ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwa ilaahay ku tilmaamay kuwa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda mashquulka ku ah sababta loo ammaanay waa kaa marka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama man tacallama alqur'aana maaha bialfaadihi wa xuruufihi faqat ninka xarfihiisa bartay oo qura maaha waa man tacallama alqur'aan baa la yidhi qur'aanka ninka bartay lafdan wa macnan bartay risaaladaasi ogaaday oo dadkana gaadhsiiyey kaas khayrukum baa nebi maxamed ku sheegaya waa ninka idinku khayr badan ilahay wuxuu ina leeyahy walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun daraasa wa cilmi baynu u baahanay inaynu baranno waxaa laga yaabaa dadka badh in lagu yidhi dee wuu adag yahay qur-aanku af carabiga ka sii adago qur-aankaa sii adago haye af ingiriisiga fudud baa umalaynaysaa qur-aanku ma adka af carabiguna ma adka ilaahay wuxuu leeyahy fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacallahum yatadakkaruun walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kitaab muyasar bitaysiir ilaahi subxaana wa tacaala waa kitaab fudud baa rabbi yidhi intaasoo fanniyo meel qura ku wada qoran oo haddana fudud weeyaan baa ilaahay yidhi ilaa ninka qur-aanka baranaya waa nin qaanuun baranaya oo siyaasad baranaya oo iqtisaad baranaya oo caqiido baranaya oo sharci baranaya oo akhlaaq baranaya oo taariikh baranaya oo aakhiro iyo qiyaamo baranaya oo dikri baranaya oo ilaahay sidaa loo baryo baranaya oo sidaa loo cibaadaysta baranaya oo gaalnimo waxay tahay baranaya waxaasoo cilmiya ninka wada baranaya ee is tidhaahda waxaasoo dhan baro hadduu is tidhaahda xaggan bini aadamka ka baado doontiihi baa ku dhacaya intaaba ma wada ogaan kartid in yaroo intaa ka mid ay kugu walwalaaqi doonaan laakiin haddaad rabto intaba inaad wada ogaato qur-aanku maro intaba haddaad rabto inaad wada ogaato kitaabkan bay intaba ku wada qorantay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma baa ilaah yidhi waa aayaad cadcad buu qur-aankani ku yahay kuwa cilmiga la siiyey laabtooda walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun waxaanu la nimi baa ilaahay leeyay bini aadamka kitaab fasalnaahu calaa cilmin aanu kala bixbixinnay oo aqoon lagu kala bixbixiyey baa ilaahay leeyay kitaab aqoon iyo cilmi lagu kala bixbixiyey baan u keennay baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala qur-aanka waxaa rabbi ku tilmaamaya inuu yahay nuurka wax lagu ifsado laydhkan maxaa lagu falaya in wax lagu ifsado soo maaha shayga aad rabto inaad aragto inaad si waadixa u aragtid ayaa toojkan iyo nalkan laynoogu ifiyey kamaradaasi inay si waadixa wax u sawiri karto haddii nalka la damiyo kamaradaasi sawir aan wada muuqanaynin bay soo saaraysaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu qad jaa'akum burhaanun min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan baa ilaah yidhi nuuran مبينا نور عد الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فآمنوا بالله ورسوله حكوا حقا والنور الذي أنزلنا إلهي الرمي يا رسول كي سبا يا النور كي أن سودة شيبا إلهي لي the light إف كي أن دي سودة شيء muxuu ifinayaa alxayaa kulliha nolosha dhammaanteed buu ifinayaa haddaad aakhiro doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad adduunka doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad sharci iyo qaanuun doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad siyaasad iyo dhaqaale doonayso isagaa lagu ifiyaa waxaad u baahan tahay noloshoo dhan isagaa ifinaya waa nuurun yustadaa'u bihi waa nuur magdiyada lagaga baxo faaladiina aamanuu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بإلهي نبي محمد كوي الرمية وهي ليه تاغيري إيه محي راعي بالليلة واتبعوا النور
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك أيها الإخوة، الحسن بن العلي بوحليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل. وحنا ركنا أيها الحبة قرآنك عبادة الله أخرية أو الله برتاه، ونقص وافقسا قفكي حرف أخرية محوليه هي طبعا حسنه. إنا أعطينا داد أخرى ذا وحي علماء كشيء قال لبي أفرتن حرف مالها إنتي أفر يلا باطن أفر بقول يلا باطن أشرب بعد لاد علماء الحروف القرآن كتيرية قاركود وحي كتل ماما سدح بقول وكون نكبدني سدح بقول وكون هذا أخرى ذا وامسه مركز مرة ما يسوى 6 مليون أشرة طبعا مركز لو قلفته. إذن قرآنك أخرس كيس ووحلو عباديسته ووينوغا باهي وأنا حفظدين وأنا إلى الإنسان وأنا أخريسا وأنا كوردين إنسان لبا شيء وكلو مهمة أيام مركزية نشرة كو قرآنك والرسالة دي نبي محمد لو سوديبي وأنا معجزة دي نبي محمد. ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaar ah bay ahaan jirtay, risaaladuna shay gaar ah bay ahayd. مثلا النبي موسى محل سوسي حوته كتابك توراة بوته معجزتي سنة محياه أشي قعنتي ضفادعدي قملكي وآياتك 9 هاي قرآنك كقرة أيه. إذا معجزتنا قاربة كتابنا قاربوها أنبياء دي قرآنك كشاكين يا مكور رمي يود مساسي هاي. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزتي سير رسالة سوا مدخلها كتاب كان قرآن كابا معجزتي مركين معجزة لنا محين وجدنا وبينه ووحي عدينا إنه الرسول يهي. إذا دينتي النبي محمد لو سوري بوردن كتاب كان قرآن با وأصله نبي محمد إنه النبي يهي حاجات كأوغانيسه قرآن كان نبي محمد إنه النبي يهي قرآن كان باشيغية. السلام مركا إلهي وحي نقل هدلي نولشي نوردن إنه إصلاحيه وحي وكو قرانا وقرآن كان مركا قرآن كل وضع الشيء بوذي مرقرة مرنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي نبدي ساعدين مرنا ووحي لين فريين نكون قرنه شيء هدو لبدا الشيء ودايي محو inooga baahayay markaa ma inaynu akhrino qoro ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadabburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi inaynu si xoogan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimeynaya kitaabka si uu kala akhris badan yihiin صلاة يدين تكين يا ليلى كما أقرأكم لكتاب الله بالليل كيدن قراءة فعلا عد قرماها واجه رنك قراءة ونكسل وحاها الأقرأ لكتاب الله أي الأفهم لمقاصده وحانك وأقوم بضله وهي قرآن كما أصلوها حتى هدار دمتان وحبل الليدين كالوايو nabigu qoladii wuxuu markii la aasay muxuu yiri labadii nin ee xabaasha lagu ridayba keeba la horumarinay xabaasha aqraahum likitaabillahi ibn nabi xabaasha waxa ku horridaa ilaahi kitaabkiisa ki akhri badan hadaa dhimatana saasa loo kala maamuus badan iyo saa quraanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxa loo kala manzilo sareynaya iqra ورتل كما كنت ترتل اقرأ وارتقي بالله آخر يكر جنة آياتك هكذا ما تهلك شوكتها بتشوك سنساي
idan booska sare aakhira jannada iyo magaciyo maamuuska lagu kala leeyahay xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore ee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab quri kuma toose xataa luqada carbeed masaadir اللغة العربية في القرآن هذا براتو كمية يوجو بلاد نيد بات هيساي قرآن لغة عربية حتى صلوب كاغ لغة ويجاب حتى قرن قرية وهدات فهمته كتاب كان قرآن هي رياضة قرآن مركا نكاس ضافنه وحلين قصدي جوين القرآن كدم بي أخرس كيسو وإن لفهمه لو ضغمه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دعاء نبي إبراهيم إله واحد كسر حسارته مد قرآن كقو آخرية وعلمي سنبرة وتزكية تربية أرجع يزكيهم بعد دعاء النبي إبراهيم ودنبايا لكن سدح ذا أيضا كلا قرآن مسألة كورما يحق هريس ومرته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم حكوا حاجة ما حكوا حاجة مرة ويزكيهم إبراهيم يزكيهم تودن بيسي مركو دعيني لكن إلهي مركو شيء يصدح ذا شارع قرآن كايما لها كصار طيبة يزكيهم تسوه الرئيسي dadku intaanu quraanka cilmigiisa u sii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbiga raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo quraanka iyo cilmi baaristiisa iyo barashadiisa quraan akhris quraan maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa majtamaca qawmun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده النبي عليه الصلاة والسلام دول سقمية ما دان قري إلهي قري سكمده يقول الله بشيء سمينيه شيء كوادو محي يقول آخرين إلهي كتاب يسمى محاكو حقه ويتدارسونه قراءة قرآن لما ربه وحلا ربا دراسة للكتاب برنا يبا إلهي سبحانه وتعالى هذا يتاصي دعضه إلهي السكين وكسود شيء سكينة وحسلوني بني آدم كان الله شوحه وقول لك تبطن له حكم إذا أما الدنيا دينه ما أنت تشوقنا استرس أنا نكستي أي كور ورتا صما الدنيا دين ما أنت تكون والله القلق والاكتئاب والاضطراب حسلوني الآن يورور والبهار يبقى والدنيا دينه ما أنت تشوقنا كصور ورطي بخاطرته والبهار كي وحى كشقيسا وضنا دقار كود بي وحي كبدين خاطرته كالوردن مركل اسكو عافمات كينتي سكالوردن سايكولوجي سايكاتري بس كا بدن باي دهدان ودنا دقار كود معناه هذا محي بني ادم كورور با ودا هيا mid hungurigu waa warwar galiyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwar galiso baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwar ka waa warwaraya ilaahay wuxuu leeyahay hadaad quraanka inta aad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira daraasaysid xasiloona kugu soo degaysa warwarku wuu ka tagaya ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub warwarku wuu ka haraya هداد ورور اسكو أركته قرآن في ذكرك اللازم وغشيتهم الرحمة بإلهي إلهي نحرستي سد بوليس وحفتهم الملائكة ملائكة